howlgalladani ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ujeedkeedu ahaa xaqiijinta ammaanka degmadaasi iyo nawaaxigeeda iyo sidoo kale bacsiga maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ee dhuumaaleysanaya. Howlgallada ay ciidanka ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada Awdheegle ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose kuwaasi oo ay ka mid yihiin deegaanka Shaam, Daarusalaam iyo deegaano kale oo hoos taga degmada Awdheegle. ciidanka xoogga dalka intii ay howlgalka ku guda jireen waxa ay wadooyinka ka sameeyeen howlgallo mina baaris ah si ay shacabka Soomaaliyeed uga badbaadiyaan dhagarta maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. Taliyaha ururka 66aad guutada 14 Oktoobar Gaashaanle Axmed Maslax Xuseen ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay howlgalka in uu ahaa mid qorsheysan oo ay ku baadigoobayeen maleeshiyaadka dhuumaaleysanaya ee argixisada Al-Shabaab isla markaana ciidanka xoogga dalka u diyaarsan yihiin sidii ay shacabka Soomaaliyeed uga badbaadin lahaayeen dhagar kasta oo ay soo maleegaan argagixisada.